waxa weeye baarlamaanka laftiisa doorashada qabtay ee guddoonka aad hadda sheegtay uu ka yimid baarlamaanka la isku haysta waayo oo dhan walba eedu uga socoto in la eetira waa la rabaa oo tilmaamaha lagu tilmaamayo iyo talooyinka laga geysanayo la tixgeliyo waa la rabaa waxa kaleeto la rabaa baarlamaanka laftiisa dadka galmudug u heeloon inay hormariyaan oo murashaxiinta ah oo ayaku doonaya badbaadada galmudug in laga tixgeliyo dhisidda galmudug oo ay noqoto meel ay u sinan yihiin dadkii saamilayda siyaasadeed ka ah galmudug Shaakir xildhibaanna la idin siiyay tirada idinka sheegtay dhowr jeer bay idin tanaasushay dawladda oo aad wax diidaneedeen in wax la idin ogol yahayna ay cadeynayso xubno aad gacantiina ku soo qorateen inay maanta xildhibaanna ka yihiin golaha baarlamaanka ee galmudug waxaan aad iyo aad ku su'aali lahaa inaad hal tanaasul oo dawladda noo sameeyay aad ii sheegto annaka inta aanu tanaasulnay bulshada daraadeed oo dawladdu waxay waday aanu hogaansano aan iri balwada waa tira badantoo waa ku tirin karnaa laakiin hal tanaasul oo dawladdu sameysay oo maamulkii soo dhaweeyay ka jiray galmudug hal shay uga tanaasusha dawladdu ma jiraan annaka waxaan ugu daran xildhibaanada lafteeda ayaa waxaa lagu soo xulo dawladdu ku soo xushay qof ahlu sunna wal jamaaca xiriir la leh naga ilaaliya dadka aan xiriirka nala lahaynina waa shabaab waa la ogyahay dawladda federaalka Soomaaliya ka yeeli mayno mana laga aqbalayo bulshada galmudug ka aqbali mayso cid xiriir la leh shabaab ama shabaab ba lagu tuumahayo inay deegaankan madax ka noqoto marna laga yeeli maayo waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha aan ku daba joogna ayay ka mid yihiin war dhowr meelood yaan wax lagu karin isku meel wax bahirsan oo dadku ka wada qayb galan ha lagu kariyo ayaan leenahay dawladdiina annakii ahlu sunnahay ayay inta nagala carafta ayay waxay ula fiicaraysaa waxay rabtaa galmudug inay ka dhigto xaafad kamida magaalada muqdisho oo madax xagga ay ka keentay ay madax uga dhigto xildhibaano xagga ay ka keentay ay xildhibaano uga dhigto saraakiil xagga ay ka keentay saraakiil uga dhigto dalkaanina waa dhaqnaa saraakiil buu lahaa madax buu lahaa maamul buu lahaa wuxuu lahaa hadaf buu lahaa dadkii waa yaaban yihiin in yani Shaakir adaa wareejiyay laakiin Soomahan ciidankii adaa wareejiyay oo saraakiishii dawladda ku wareejiyay waxaan aad sheegayso adinka gacanta ku hayay idinkana dawladdu u ogolaaday Soomahan xaaf iyo annaku inaan iskhilaafna dawladda ka shaqayday walina hadda waa ka shaqaynaysaa dawladda ka shaqaysay ayadaana waxay uga shaqaynaysana waxa weeye waxay ayadu keligeed la tahay inay meesha ka dhisto ayadii ayayna hidideeladeedii weli ku jirtaa waa arkaysaa dadkii xatan iska dhaaf xaaf iyo annaka iyo waxaasoo dhan ka soo gudub saamilaydii siyaasadeeda dibad iyo dalkaba isaga timid ee u timid galmudug inay wax ka badbaadiyaan maanta meesha ay ka marhayaan waad arkaysaa hal musarax oo keligiisa dawladdu wadataa asagaasay yani bushgaraynaysaa musharaxiintoo dhan inay wadato xildhibaanada u ogolaato kulli hal qof inay lacag hor wado oo tiraada kan maahan xildhibaan qof kale ma doora kartid kan maahan maxaad ku cadeyn kartaa Shaakir mas'uul baa tahay ahlu sunnad sarkaal ka tahay waliba nin culimo ah madaxii xukuumadda tahay maxaad ku cadeyn kartaa dawladda Soomaaliya hal musharax inay wado inay lacag ku hor wadana maxaad ku cadeyn kartaa noo sheeg taa waxa weeye bulshada Soomaaliyeed oo dhan cadeynaysa marka arrin iska cad weeye annakuna aan ognoon cadeyn karno galmudug waxaad ogtihiin aniga iyo madaxweyne xaaf markaan ka ahayn aniguna madaxa xukuumadda aan ka ahaa madaxweynuhu ka ahaa min cirif ilaa cirif amnigeeda sidii loo soconayo waa loogaa Shaakir laakiin ninkaas aad ku amaanayso amniga iyo inuu galmudug wax ka qabtay Axmed Geelle Xaaf adiga khilaafay adiga meel cidlo uga tagay oo ka raacay dawladda federaalka hadda eedeynayso Soomahan dawladda federaalka Soomaaliya aniga iyo madaxweynaha iyo wada shaqaynayna waxaan aragnay inay meel kale wax ka dhisaydo oo galmudug meel kale ay rabto inay dad ka shido markaasaan waxaan niriyaysa dad kala shidine aan u tanaasulna dawladdii Soomaaliya maadaama ay tahay ummadan aan u tanaasulno hal maamulna laga wada dhiso